asalaamu calaykum. waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan. waa mar kale iyo barnaamijkeenni faallo buug oo uu maanta miiska inoo saaran yahay buug aad cajiib u ah, The Productive Muslim, oo uu qoray Mohamed Faris, muslimka firfircoon ee wax soo saarkiisu aadka u sarreeyo. labadii sano ee u dambeysay waxaan aad u akhrinayay buug ku saabsan horumarinta nafta ama self-help books, laakiin waxa aan dareemayay in ay meel wax iska qabsan la'aayeen, oo si kasta oo ay buugtaasi u macaanayeen wax xun baa ka maqnaa oo gaab baa jiray. micnaha iyo nuxurka buugtaasi ay lahaayeen jawaabtoodii ama outcomekoodii ma arkayn ilaa aan akhriyay Mohamed Faris buuggiisa The Productive Muslim, meesha ay ku kulmaan iimaanka iyo wax soo saarku. buuggan oo buuxiyey gaabka ama faariqii u dhaxeeyay buugtaas talooyinkoodii iyo noloshayda caadiga ayaa waxa uu aad iyo aad u dhiirigelinayaa dhammaan muslimiinta doonaya inay noloshooda maalinlaha ah wax ka bedelaan. oo buuggiisu waxa uu si wacan u hagin hab nololeedka muslimiinta maanta ku nool magaalooyinka, isaga oo isla markaas kulminaya tarbiyadda islaamka iyo cilmiga casriga ah sida cilmi nafsiga, isagoo markaasina tusinaya sida lagu gaaro wax soo saar ama nolol wax soo saarkeedu aad u sarreeyo. buuggan ayaa waxa uu ku dul socdaa 3 qaybood oo aad u waaweyn: spiritual oo ah dhankii ruuxda, wax soo saarka dhanka ruuxda ah; physical tii jismi ahaan inuu qofku jismigiisa uu yahay jismi wax soo saar leh; iyo social productivity wuxuu ugu yeero oo ah bulshadii markaa aad dhex joogtid inaad tahay qof firfircoon oo ka dhex muuqdo oo wax badan kusoo kordhiya bulshadaasi. qoraagu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in diinteena islaamku ayna siinayso qaababkii iyo dariiqooyinkii aynu ku noqon lahayn qof wax soo saar leh, oo tiirarka islaamka sida salaada, soonka iyo zakada ayaa waxa ay buddhigo u yihiin ama jaangooyaan inaanu noqono qof firfircoon oo wax soo saar leh. buuggani marka guud ahaan waa habraac ama practical talooyin iyo tusaalayaal na tusinaya sida aan muslimiinteena maanta ula tacaali lahayn caqabadahana haysta. haddii aynu u dhaadhacno gudaha buuggana, qoraagu qayb badan oo buugga ka mida waxa uu kaga hadlayaa ruuxda iyo in la quudiyo ruuxda, isagoo uu markaasi tusaalooyin ka soo qaadanaya sida ay salaada, zakada iyo istighfaaraysiga farabadani uu u bilo ama uu uga dhigo ruuxdeena mid active ah oo firfircoon oo wax soo saarkeedu aad u sarreeyo. sidoo kale wuxuu kaga hadlaa waxyaabaha jismiga taageera sida hurdada, in aad jimicsi badan samaysid, hurdo dheelitiran, iyo in aad cuntid cunto caafimaad leh. iyo qodobka socialka ama bulsho ee sidii aan ula dhaqmi lahayn ama wax ugu soo kordhin lahayn bulshada nagu xeeran ama aan markaasi la noolnahay, isagoo markasta qodob kasta marka uu ka hadlayo ku laabanaya qeexitaankiisa uu productivity ku qeexay in ay tahay 3 wax oo la isku geeyay oo ah focus, energy iyo time. waxa aad ii soo jiitay runtii habka buuggan loo qoray oo ah mid aad u sahlan, qof kastana uu si sahlan u fahmi karayo, isaga oo markaas si qoraagu isticmaalay farshaxan iyo marka uu chapter kasta soo gunaanadayo sawirro tusinaya oo ku sahlaya in aad xusuusatid waxa aad soo akhrisay gadaalna ugu laabatid mar kale. guud ahaan waa buug si fiican loo qoray oo si sahlan kuu fahansiinaya waxyaabo laga yaabo inaad adigu horey u taqaanay laakiin aadan dhankaa ka soo eegin ama aadan ku baraarugsanayn. waxaana ka buuxa runtii talooyin iyo tusaalayaal iyo qodobo iyo jadwallo aad inta qaadatid noloshaada maalinlaha ah ku dabaqi karaysid. casharada haddii aan u imaado casharada aan buugga ka bartay, kan koowaad waxa weeye in hadafka iyo himilada aad leedahay aysan ahayn iyada laftirkeedu dhammaadka, ee hadafkaaga iyo riyooyinkaaga waaweyn ee dunidan ay yihiin waddo kugu hagaajinaysa ama dariiqo kugu sugayso, kugu leexinaysa hadafkeenna u weyn, hadafteena kaas oo ah jannada. waxa kale oo aan ka helay sida uu tixraaca ugu sameeyo axaadiid, aayado iyo weliba buug ay leeyihiin dadka aad wax uga qora horumarinta nafta. waxa uu si fiican oo qoto dheer u sharaxayaa qodobo sida sabirka, qadarta, asaas u ah diinta islaamka, laakiin muslimiin badan ay si qaldan u fahmeen. oo tusaale waxa uu dhahayaa
ducadu ruuxdeenna ayay bishaa ee ma beddesho baahida loo qabo inaynu ficil qaadno oo aynu hawl inagu markaa qabsanno aan noqono qof wax soo saar leh. oo isla markaasi ducadu waxa ayna siisaa dhiiranaan iyo dhiilo aanu markaasi ku dardargelino hawlaha ay tahay inaynu qabanno. laakiin inta ay iska ducaysatid inaad meel fariisatid keliya kuma filnaanayso, waa inaanu ficil badan ku darno oo ilaa aan tallaabooyin u qaadno himilooyinkeenna iyo waxa aan doonayno inaan qabanno ma ka dhaqaaqayna ama ma ka tegayno meeshii aanu fadhinay. sabirku sidoo kale waxa u dhaxaya isaguna ma aha baasif iyo inaad meel fariisatid oo iska sugtid. waa ficil active ah oo u baahan juhd iyo inaad dagaal geshid oo aad u dagaalantid waxa aad doonaysid inaad heshid oo aad dadaal dheer muujisid si aad uga guulgaartid himiladaada una heshid natiijo wacan oo firfircoon. mid ka mid ah coacheska aan aadka uga helay waxa uu ahaa dunidani waa beer, taas oo aynu ku talaalanno camaladeenna suuban sida horumarinta bulshada, annagoo ku rajo weyn inaanu ku mutaysanno meel ka sarraysa iyo janno iyo raalli ahaanshaha alleh marka la joogo dunidan iyo dunida xigta ee aakhiraba. labadan daar ee adduunka iyo aakhirana aad ay isugu xiran yihiin. gunti iyo gabagabadii haddaan u imaado, buuggani waa buug kugu abuuraya fikir, kugu dhiirigelinaya oo kugu riixaya inaad tallaabo iyo ficil qaadid, una ah runtii meel muslimiin badani ay ka heli karaan dhiiranaan iyo inay fahmaan say isugu xiriiraan waxyaabaha ay diinteenu tarbiyada ay diinteenu nafarayso iyo waxyaabaha nagu xeeran ee maanta ama caqabadaha magaalooyinka iyo dunida aan ku noolnahay maanta yaalla. buuggani kuma tusayo sidii aad ku noqon lahayd milyaneer ama aad ku noqon lahayd CEO balaayo ka dhacda sida buugta kale productivity-ga iyo horumarka ka hadla ee galbeedka laga qoro kale. laakiin buuggani waxa uu siinayaa talooyin iyo tusaalayaal aad qaadi karaysid, kuwaas oo kaa dhigaya qof wax soo saar leh, firfircoon, faraxsan, xiriir dhowna la leh allihii abuurtay. buuggani marka waxa uu xoojiyey aqoonteeda islaamka ee la xiriira wax soo saarka iyo sida aan ku noqon lahaa qof bulshada ka dhex muuqda firfircoon oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba isku xiray. qoraaga buuggan qoray Maxamed Faris sidoo kale waxa uu leeyahay website iyo shirkad la yiraahdo The Productive Muslim, taas oo aad ka heli karaysid blogyo ama qoraallo qurxoon, jadwallo maalinle iyo bille ah oo runtii kaa caawinaya in aad noloshaada maalinlaha ama billaha ah hagtid oo qorshahaaga kala dejisatid oo plan sheet uu ku siinayo. dhammaantiin waxaan idinkula talin lahaa in aad akhrisaan buuggan, khaasatan bisha nagu soo foolaya barakaysan oo Ramadaan, maxaa yeelay chapter dhan oo buugga ka mid ah ayaa wuxuu ka hadlayaa sidoo qofku ku noqon lahaa qof firfircoon oo wax soo saar leh marka lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. marka waxaan idinku dhiirigelin lahaa bilahan barakaysan inaad isku daydaan inaad akhrisaan oo aad ka heshaan dhiiranaan iyo tips iyo tallaabooyin iyo qaabab aad kor ugu qaadi karaysaan wax soo saarkiina idinkoo markaas ku jira cibaadadiinni kale ee maalinlaha ahayd. ilaa kulanti dambe oo xiise leh, waa Yuusuf Shire oo idin leh isma dhaafin. assalaamu calaykum. fadlan ha ilaawin inaad tiraahid share, subscribe, like, lana sii wadaag asxaabtaada.